barasaabka gobolka Hawd Axmed Cigayar ayaa safar wacyigelinta ah ku maray deegaano ka tirsan gobolka Saraar. Barasaabka gobolka Hawd waxa uu dardargeliyay sidii la iska kaashan lahaa qaadashada kaarka diiwaangelinta. Barasaabka gobolka Hawd waxa uu kulan ballaaran la qaatay maamulka degmada Og, dhalinyarada, haweenka, cuqaasha iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Og. Kulankaas ayaa ah mid diiradda lagu saarayo in dadka lagu wacyigeliyo inay qaataan kaarka. muwaadin isdiiwaangeli muwaadin fariintaasi xusbinimo ma leh mucaarad iyo maxaafid ma kala leh waxa weeyaan xuquuqdii qofku uu lahaa qofka isdiiwaangeli waaya saddex xuquuqood buu luminayaa. xuquuqda koowaad waxa weeyaan tii muwaadinimada inaad nin Somalilander ah tahay nooshahay wadanka joogtaa tahay ayaad marka ugu horeysa markaad isdiiwaangelisid ayaad helaysaa. xuquuqda labaad waxa weeyaan iyaduna taad qofkaad jeceshahay maalinta ay doorasho noqoto sidaad ugu hiilisid qofkaad doonaysid in wax ku qabto ama aad jeceshahay mustaqbalka dalka iyo dadkaba wax u taraya aad ugu hiilin lahayd. ta saddexaadna waxay ka caawinaysaa regionka amba deegaanka aad ku nooshahay populationkiisu intuu yahay oo resourceska amba khayraadka wadanka amba miisaaniyada dalka lagu jiheeyo cid waliba inta ay leeg tahay. waxaan doonayaa inaan iyadana yara sharaxo 27 bisha waxa ka bilaabmaysa gobolka Saraar iyo Togdheer iyo degmada Ceelaf Weyn iyo degmada Garadag. runtii gobolkii aan mas'uulka ka ahaa si fiican buu isu diiwaan geliyay si fiicanna way u qaateen kaararkii. gobolka Saraar waxaan rajaynayaa iyo degmada Og inay codkoodii laabaan. maamulka degmada Og, cuqaasha iyo waxgaradka ayaa iyaguna barasaabka gobolka Hawd ku ammaanay doorka wacyigelineed ee uu ka qayb qaatay degmada Og ee gobolka Saraar. ujeedada iyo hadafka shirkan loo qabtay saaka waxa weeye in dadka la yiraahdo u diyaar garooba iyo gudaheeli ilaa iyo muxuu barkadii ali xirsi oo jiidana waa soo marnay intaana dadku maanu lahayn waray karka qaat oo sidaa u qaat oo sidaa weeyaan oo dantiina weeyaan oo danteena weeyaan tan la kala leeyay maaha waa hawl cid waliba leedahay. deegaankeennan ilaa adigu 3 gobol Togdheer iyo Sanaag iyo Soolsheenin waa laga guuro dadku gaashaamo ma joogo dadku wuxuu joogaa Danood waxna Puntland bay galeen hadeerna waxa laga wareegay Sanaag oo waxa la qabtay xanig iyo wareeg marka arintaasi dhibaato inagu haysaa laba maadil labadaba waa codsanaa waxaan codsanaa horta in la nagala qayb qaato dadkaasi loo soo rari lahaa oo aan linagu sii deynin mid kalena waa codsanaa oo dadka inta ku kala quban waxa loo baahan yahay example waqtiga in loo kordhiyo waqtiga diiwaangelinta qof kasta wuu u baahan yahay kaarka wuu fayday amba faydnay waxba ay farin buu wuu faynay qof kasta inuu kaarka qaato waana qaadanaynaa waana u hawlgelinaynaa haween iyo dhalinyaro iyo odayaal iyo islaamo mid kasta waan ku wacyigelinaynaa. Yaasiin Baaldahab, telefishinka Saab TV, magaalada Og. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom.